maxamed idris deybi waa curadka saddex carruur ah oo uu dhalay marshal idris oo dunida maanta ka calaf qaaday waxa uu dhashay sannadkii 1984 dee ahaan waa 37 jir waa khibradyahan dagaal waxa uu ku dhashay xero ciidan waxa uu ifka ku soo biiray aabbihiis oo hogaaminaya jamhad dagaal oo uu doonayo inuu qabsado talada Chad maxamedka maanta la wareegay awoodda Chad markii hana qaaday waxa uu hormuud u noqday dagaal kasta oo Chad ay gashay gaar ahaanna kuwa ku salaysan difaaca xukunka aabbihiis dagaalada ugu saamaynta weyn ku lahaa waxa ka mid ah duulaankii dhex maray Suudaan iyo Chad markii Idris iyo Al-Bashir ay isku eedeeyeen inay jamhado isku hubeeyaan maalmihii adkaa ee maxamed la ogaaday hogaamintiisu waxay ahayd markii uu ka soo tallaabay Febraayo sanadkii 2013 xuduudda dalkiisa waxa uu leylinayay ama hogaaminayay 1000 askari oo ka tirsan ciidanka Chad buuraleyda dhacda waqooyi bari ee Mali ayuu gaaray si uu ugu biiro guluf colaadeed oo ka dhan ah argagixisada mayalka adag ee ka dagaalanta Mali dhacdooyinka la yaabka leh waa in uu 1200 oo kiiloomitir dhex socday dhulka lama galaanka ee waqooyi bari ee Mali buuraha lagu magacaabo Idris of Gas oo ku yaala xuduudda Mali iyo Algeria waana goobo dadku si weyn ay uga cabsadaan Faransiiska ayaa xilligaas diiradda ku hayay hogaamintiisa waxa ayna ka dhigteen saaxiib dhow si ay ula socdaan dhammaan dhaqdhaqaaqiisa xagga ciidamada ah xilalka uu soo qabtay waxa laga xusi karaa waxa uu ahaa taliyaha ciidamada taangiyada ama gaashaaman ee Chad hadda waxa uu hayay taliyaha ciidamada madaxtooyada ee gaarka ah oo ah ciidanka ugu awoodda badan ee Chad leedahay saacado ka hor ayuu la wareegay awoodda dalka Chad wax yar uun dhimashadii aabbihiis oo shalay loo doortay isla talada dalkaasi markii lixaad maxamed tallaabadii u horreysay ee uu qaaday waxay ahayd inuu muddo 1 sano iyo 6 bilood laalay dhammaan dastuurkii iyo xeerarkii dalka kala diray goliyaashii wasiirada iyo baarlamaanka awoodda isagu la wareegay waxa uu meesha ka saaray ku-simanimadii xilka qaban lahaa ee gudoomiyaha baarlamaanka falanqeeyaasha arrimaha Chadi waxa ay rumaysan yihiin in Idris Deybi uusan ku dhiman dagaal toos ah balse uu ahaa afgambi far adag lagu qoray oo wiilkiisa xukunka la wareegay qaybta ugu weyn ka ciyaaray ama abaabulay maxamed aabbihiis waa Idriska sida uu ku dhintay lagu muransan yahay waxa uu ahaa geesi iyo dagaalyahan aan mucaaradku holin ama hor istaagin damiciisa si fudud aan lagu dhagri karin waxa uu dunida yimid 1952 bishii Luulyo 18 qoyskiisa ayaa ahaa reer guuraa sabool ah oo degan xuduudda Chad iyo Suudaan waxa uu ka soo jeedaa qabiilka lagu magacaabo Saqaawa oo ku fiirsan saddexagalka saxaraha dalalka Liibiya Suudaan iyo Chad waa mid ka mid ah qabiilada ugu badan ee Afrika Idris Deybi waxa uu heerka koobaad ee jaamacadda kaga gudbay isagoo 20 jir ah wuxuuna xilligaasi kadib go'aansaday inuu ku biiro dugsiga tababarka saraakiisha ee ku yaala caasimadda dalkaasi bilo kooban gudaheed waxa uu noqday sargaal firfircoon taasoo u soo jiiday helidda deeq waxbarasho oo ciidan kana helay Faransiiska oo uu noqday markaana duuliyo diyaaradaha xamuul ee ciidamada ah soo laabashadii Faransiiska kadib 1976 oo uu soo guryo noqday waxa uu saaxiib dhow la noqday madaxweynihii dalkaasi xukumayay Felix Macluum waxa uu ka mid noqday saaxiibada iyo saraakiisha ugu dhow uguna muhiimsan ee madaxweyne Macluum taas waxa loo arkayay inuu yahay nin leh han iyo mustaqbal siyaasadeed ifafaalaha rajada iyo madaxu dhawaanshihii Deybi waxa ay soo afjarantay 1982 markii uu talada la wareegay madaxweyne Xuseen Cibri waxaana loo arkay Idris inuu yahay khatar siyaasadeed iyo mid ciidan ee hortaalla xukunka Xibri taasoo horseeday inuu noqdo jamhad ka baxsada dalkiisa ka soo bilaaba dagaal dalalka dariska la ah dalkaas gaar ahaan Liibiya iyo Suudaan Marshal Deybi waxa uu markan asaasay jamhad uu ugu magac daray badbaado qaran oo taageero xooggan ka heshay dalalka Suudaan iyo Liibiya weerarkii ugu horreeyay 1989 ayuu ku qaaday dalkiisa 1 sano oo qura ayay ku qaadatay inuu qabsado dalka Chad taladana ka cayriyo ama ka xayuubiyo Xuseen Cibrigii ka cayrsaday markii hore Chad la wareegidii Deybi ee xukunka 1990 kama uusan xasilin
waxa uu muddo dheer maamulaya Chad oo ku jirta dagaallo hubaysan oo ay ku soo qaadeen jamhado ka soo horjeeda gudaha oo qabiilo ay isku hayeen iyo kuwa ay iyadu ku qaaday dalalka jaarka la ah isagoo ku dhagan xukunkiisa. Febraayo 1993 ayuu axdi ku meel gaar qoray 6 sano oo uu doorasho la'aan joogayna xukunka 1996 ayuu doorashadii ugu horeysay qabtay kadibna 2001 ayuu mar kale isboqoray markii ay dhamaatay muddada xilhayntiisa labaad ee doorashada xukunkana uu jooga 16 sano waxa uu 2006 dastuur ka bedelay waxaana uu ka saaray qodobka caayimaya muddada la dooran karo madaxweynaha waxaana uu ka dhigay mid furan waxa ugu weyn ee lagu xasuusto waa inuu batrool u soo saaray dalkiisa in uu dhisay sanadkii 2003 dhuumaha shidaale isku xira Cameroon iyo Chad mar uu noqday madaxa ugu sarreeya ee midowga Afrika sanadkii 2016 faragelinta dalalka kale marka laga hadlayo si weyn ayaa loogu xasuustaa inuu ahaa maskaxdii iyo gacantii ka dambeysay in Faransiiso Boocsiis uu noqdo ama la wareego awoodda dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe taasoo uu Daybi u arkayay inay ahayd sii joogitaankiisa xukunka. Kacdoonkii Liibiya waxaa lagu xasuustaa inuu si weyn u garab istaagay saaxiibkiisii xukunka u sahlay ee Colonel Gaddafi inkastoo ay sanooyin dhexe gacan qaad ciidan dhex maray la gudahooda haddana kama uusan baaqsan inuu boqolaal askari oo hubaysan iyo taakulayn ciidanba u diray gudaha Liibiya si ay u caawiyaan Gaddafi. reer galbeedkana waxa uu ku sifeeyay kuwa ka soo horjeeda Liibiya adag oo xoogan intii xukunka uu joogay waxa uu ciidan u diray Daybi nabad ilaalina dalalka Mali Nigeria gobolka dhaca galbeedka Suudaan ee Darfur iyo dalal kale taas waxaa loo arkayay mid uu hoos ugu dhigay awoodda ciidankiisa ee u haqaltaagaya xukunka kasokow inuu ka badbaaday boqolaal isku day afgambi dagaalla jamhadeed oo kharaar badan iyo toogashooyin toos ah haddana dhacdada xasuusta leh waa in uu bishii Maarch ee sanadkii 2020 hogaamiyay duulaan culus oo ciidankiisu ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen Boko Haram oo isku dayaysay inay qabsato saldhig ciidan oo ay lahaayeen Chad weerarkaas oo uu shakhsi ahaan Daybi hogaamiyay waxa uu galaaftay nolosha 100 askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ee Chad laakiin Idris ma joojin dagaalka ilaa uu ka guuslaystay soona afjaray dagaalamayaashii Boko Haram 4 bilood kadib duulaankaas dhacdada xasuusta leh waa in darajada ciidan ee loogu yeeri jiray oo ah Marshal oo hamida ugu sarreysay ee askari qaato la guddoonsiiyay bishii July ee sanadkii 2020 markii loo aqoonsaday inuu yahay halyey ama mujaahid qaran oo reer Chad ah. caadiyan ninkan aynu ka hadlayna duwaankiisa kuma xusna kaligi talisnimo inkasta oo xukunka ku raagay haddana la dagaalankiisa argagixisada ayaa taariikhdiisa ka dhigtay mid aysan reer galbeedku ku shaabadaynin xukun jacayl walow geeridu kursiga ka kaxaysay si kastoo geesinimadii xukun raadin iyo halgankii Marshal Idris Daybi ay iskula qirsan yihiin dhammaan dalalka jaarka la Chad haddana waa marxuum dunida macsalaameeyay hadda waxaa lagu muransan yahay sida ay ku timid geeridiisu la yaabkuse waa in isagoo shalay markii lixaad guulaystay ayna socdeen dabaaldegyada guushiisa haddana uu ku qaatay furiimaha dagaalka gaar ahaanna waqooyiga gobolka Kandam iyo deegaanka Siki ee dalka Chad halkaasna ay tahay meesha la sheegay noloshiisa inay soo afjartay.